كوبيلاتكي بيش الطبناد سنة كان اللبكون يتضبية طبعا وحا يسبدلي دمان موقالك يجويق دالك سومالي لان وحا لقلي حالة كدوان tii hore ay ku noolaayeen shacabka waxa bilaabmay ololaha doorashooyinka dalka oo ay ku tartamayeen saddexda xisbi qaran ee kulmiye u cid iyo wadani guud ahaan shacabka ku nool magaalooyinka tuulooyinka iyo degmooyinku waxay u soo banbaxeen si ay u taageeraan xisbiyada iyo musharaxa ay taageersan yihiin si uu ugu guuleysto doorashada dalka ka dhex doonta ee madaxtooyada 13 bisha 11 2017 Somaliland waxay ku talaabsatay nabad horumar doorashooyin kala dambeyn iyo dawladnimo waana taa suurtagelisay doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu tartamo barxadaha waaweyn ee madaxda xisbiyadu ku qodbadeynayaan waxa buux dhaafiyay taageerayaashooda oo ku labisnaa midabada astaamaha u ah axsaabta iyo calamadooda muddada 12 cisho ee ololuhu socdo waxa isdhala rogay muuqaalka dhismayaal badan oo dalka ku yaala iyadoo lagu midabeeyay calamada kulmiye wadan iyo u cid maalmaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ololaha leey waxay ka mid tahay maalmaha oo dadka ugu badan isku soo baxaan markaynu eegno magaalooyinka waaweyn iyo 6 gobol ee Somalilandba waxa isugu soo dibad baxa dadweyne aad u tiro badan oo taageersan xisbiga kulmiye kuna labisan calamada iyo midabada xisbigaasi uu leeyahay waxa isna aan ka liidanin xisbiga wadani oo taageerayaal iyo cudud badan haysta oo dhammaan 6 gobol ee Somaliland ay iskaga soo baxaan maalinta uu ololaha u leeyahay xisbiga wicid ayaa isaguna wacdaro muujiyay iyo cudud ballaaran oo uu soo muujiyay inkastoo xisbigan isagu habka duwan hababka kale ay sameynayaan axsaabta kale isagu u adeegsado ololihiisa isku soo wada duuba ololaha dalka ka dhacaya ayaan ahayn mid lagu kala saari karayo musharaxa codka badan ku soo bixi kara doorashada madaxweynenimo ee dalka ka qabsoomi doonta walow ay ku kala awood badan yihiin gobolada dalka doorashada sanadkani ka dhacaysa dalka ayaa ah mid guud ahaanba ku duwan doorashooyinkii hore ee dalka ka dhacay waxa sanadkani la qabtay dood taariikhi ah oo ay siyaasiyiinta u tartamaya saddexda xisbi qaraanba hogaamiyaashoodu ay soo bandhigeen siyaasadda ay dalkani ku hogaamin doonaan 5 sano ee soo socota sidoo kale waxa dood labaad loo qabtay saddexda ku xigeen musharaxiinta madaxweyne ku xigeenada oo iyaguna soo bandhigay mid lamida sidii gudoomiyaashooda waxa ay dalkani ka qaban doonaan لم يدع قريه قريه إلا عريب غير قليد الكانوا إنو حريهي دنيوها مغلان عوتي تدوينا سومالي لان عقيد دهي لها وطورت حسبك وطني وطورت حسبك وطني